Soomaaliya way yaqaanaan jini iyo dani hadii musharax soo noqdo jiniga la doornaa cidani doornaysa malaha kusoo wakaalada wararka Kenya iyo Cabdullaahi Yuusuf malis barbardhigi karaa dhanka hogaaminta iyo dulqaadka بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا جو أجريقان عبد الرزاق محمد حسن سؤال شسائي وديسي أو دني عبد الله يوسف ملس بربرديجا كرام مية دني وسياسي كلية واللي تو كسب حرب بلدان هدي معنا يكو دني وحكو فشل ما هو جامينتا بلدان دني وحاو دجال حقيقي ومدي reer Buntland waxa la aasaasay 1998 muddo 30 sano ku dhawaad ay aasaasan tahay madaxweynayaal ayaa kaga horeeyay oo soo maray oo si fiican u gardaadiyay oo u hogaamiyay dani waa siyaasi kaliya ee ugu liito soo maro Buntland taasaan ku cadeynay aniga oo agriiqan Cabdirasaaq Maxamed Xasan sidoo aragtaa dani oo Buntland soo dadka u bedelo u dilay in ka badan 27 oo shacab inuu maanta yiraahdo dawladda federaalku dastuurka ma dhageysan karto waa fashil siyaasadeed waa hinga siyaasadeed aad ayuu ugu fashil madani inuu dastuurka Buntland uu ku tuntay dastuur in dani maanta uu ka hadlo oo dawladda federaalka Soomaaliya uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlana waa xaraan in wax laga dhageystana waa xaraan danina aniga waxaan dhihi lahaa hadii uu nin miir qaba yahay inuu ku laabto garoowe ilmihiisana u xirto xitaa Buntland ma sii wadi karo dani waa fashil siyaasadeed oo dhaxfadhiya xildhibaanadii uu soo saaray oo dhabarka ka soo taabtay oo dhammaan 20 iyo dhowr xildhibaan oo hal maalin soo magacaabaan dhihi karaa doorasho ma baahan soo magacaabay xitaa way garteen inuu dani yahay nin aan siyaasadda ku fiicnayn oo hogaamin karin ummadda dhammaan way ka kala leexdeen dhammaanna maanta waxay la shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya waxayna diyaar u yihiin in la dhameystiro dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ee qabiye qoraalka ahaa muddo ku dhow 30 sano dani doorashada qof iyo cod inuu yiraahdo garowe waa ka suurtagal gobolada dalka lagama qaban karo maxaa loo fasiri karaa waa nasiib darro inteeda la eg inuu asaga garowena doorasho qof iyo cod waan ka qabanay yiraahdo dawladda federaalka Soomaaliya oo garwadeen ka yahay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuudna ma laga qabanay yiraahdo waa u doqonnimo dani waana ka muuqataa nin walba wuxuu yahay ku mooday Soomaalida laakiin dalkan waa tilaabsaday dawladda federaalka Soomaaliya hore go'aan u qaadatay dalkana doorasho qof iyo cod oo loo wada dhan yahay baro ogol ayaa ka dhacayo urur siyaasadeed oo diiwaan gashana way joogan dalka dani warkiisa cid ku jirto malaay cid dhageysanaysa midna lama arko mas'aladaha dani oo Buntland ku fashilmay ha ka yaabin dani wuxuu ku fashilmay hogaaminta maamul goboleedka Buntland dani ul laguma aaminayo hogaan dal Soomaaliyeed loo dhiibay iska dhaafay ul lagu aamin maayo dani marka waxaan leeyahay inta u dhimanna reer Buntland iska qabtaan ninkaas hana soo doortaan madaxweyne badbaadiyo maamul goboleedka Buntland intaas aan u soo jeedin lahaa reer Buntland inay dani iska qabtaan waa horta waa nasiib daro dani waa ninkii maxkamad la soo hor istaajin lahaa waaye waa qodobo waaweyn ayuu dalka ka galay dani gaar ahaan reer Buntland ka galay laakiinse dulqaadka iyo habni socodka iyo isku dhirinaanta iyo isku wada bulshada iyo dhabar adeega uu leeyahay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo xukuumadda ayaa keentay inuu dani intuu xamar imaado iska cabaado afmugiis qayliyo shalayna wuxuu cadeeyay inuu ku fashilmay dhammaan siyaasadaha haddii noqoto Buntland iyo haddii noqoto mid federaal halkaasna kaga haboon yahay inuu ku haboon yahay hogaaminta iyo gardaadinta dalkan madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud afkiisu shalay ku cadeeyay marqaati ma doonto waa wuxuu taageeray Yahuuda iyo gobolgosadka Soomaaliya wuxuu si cad u taageeray Itoobiya waa nasiib daro dani iyo mowqifkiisa oo siyaasadeed cadeen waayo goonu istaaga ee sheegtay macnaha Soomaaliland cadeen waayay macnaha dhihi waayay waa qalad Yahuud inay taageerto Soomaaliland waa qalad dhihi waayay oo taageeray Yahuuda inuu maanta soo imaado magaalada madaxda Muqdisho oo jaziiro oo ka qayliyo waa nasiib daro dani in la iska qabtana waa soo jeedinaya ka gareeqan ahaan reer Buntland ko in iska qabtaan wuxuu yiri hal soo xiro yaani qofkii reer Buntland oo qaata kaarka aqoonsiga qaranka Nigeria waa nasiib daro kaarka ID-ga national ID oo aqoonsiga ah oo qofka aqoonsigiisa ah inuu dani yiraahdo waxa la soo xiro qofkii qaato waa isir naceeb waa Soomaali naceeb danina waa jaajuus u shaqeeyay imaaraadka iyo in allaale intii duulaan ku ah dalka Soomaaliya
bal dhankaaga maxaa baa loo bedelay waxaan ka soo jeedinayaa ka garyaqaan ahaan Siciid Cabdulaahi Dani oo ah siyaasiga kaliya ee Puntland ka soo jeeday ee ku fashilmay hogaaminta maamul goboleedka Puntland oo dhinac walba haday noqoto hadda ka horna ognahay baarlamaanka inuu ka saaray xubin baarlamaan tii ugu firfircooneed oo asaga aragtidiisa ka hor imaatay ninkaas in reer Puntland mucaaradka reer Puntland ee milgaha iyo maamuuska leh waxaan u soo jeedinayaa inay badbaadiyaan maamul goboleedka Puntland inay ka badbaadiyaan Siciid Cabdulaahi Dani oo ah daneyste jaajuus u shaqeeya dowladaha Imaaraadka iyo dowlado kale oo nacab jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iibiyayna tagadii weyneed ee ku taalay Boosaaso kana iibiyay Imaaraadka inay iska qabtaan badbaadiyaan ummadda baaxadda leh abaaruhu hayaan colaado ka dhax furay siyaasadiisa ee siyaasad xanaaq iyo dulinimo iyo dagaal ku saleysan waa inay iska qabtaan aadan u salaamiyaa warbaahinta weyn ee Kila Media